السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. Waa galabnimo Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha Juulaay sanadka 2025. waa barnaamijkeeni labaad maanta aan idin soo gudbinayno. haddaba gabi ahaan barnaamijkeena waxaynu ku faahfaahinaynaa arintii cajiibka ahayd ee maanta ka dhacday magaalada Dimashq iyadoo caalamka oo dhan uu fiirsanayo ayaa Israa'iil waxay duulaan ku qaaday xarunta wasaaradda gaashaandhigga iyo meel ku dhow xarunta qasru shacab leeraado ama xarunta madaxtooyada waddankaasi Suuriya. haddaba Israa'iil ujeedadeedu maxay ahayd barnaamijkan idinku haya. Turkiga oo isagu markaa heshiisyo kula jiray Suuriya inuu difaacana ay ahayd muxuu waraw ka soo saaray waan idin hayaa. Mareykanka oo arinta ku dhex jiray oo Turkiga iyo Israa'iil kala ilaalinayaan barnaamijka hore idinku sheegay muxuu waraw soo saaray. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil muxuu yiri xaaladda hadda deegaanka leeraado Suwayda oo ay degan yihiin dadka Druuska iyo Sunniga ku dagaalamayeen xaalkeedu waa sidee. adduunyadu maxay u aragtaa sheekadan. Israa'iil hadba markuu boodaysa dal weeraraysa maxay ka faa'iidi doontaa marka dambe maxaa laga qoray. haddaba tafaasiil ku saabsan wixii maanta dhacay oo markaa dadku ay ku tilmaameen wax laga xumaaday inay ahaayeen oo caalamkii oo dhan oo fiirsanaya dawlad inta la iska weeraro la dhibaateeyo ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. barnaamijka galabnimo maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa akhbaarta caalamka oo dhan ay ka hadlayaan. qol walba siday rabtay u fasiraysa. annagu waxaan soo qaadanaynaa sida Al Jazeera iyo nidaamkan dowladaha carabta ay wax uga hadleen waxa dhacay. waxa la isku hayo iyo meesha ka soo bilaabatay barnaamijkaygii saakan idinku soo sharaxay in Israa'iil ay doonayso qolo la yiraahdo Druus inay goyso. Druusku waxay yihiin waa ka soo hadalnay. Mareykanka uu ka diiday oo la yiri maamul hoosaada la siinaya. Druuska kaligiisa eeriyadu ma deganee niman badawiyiin ah oo reer baadiye ah. badawiyiin la yiraahdaa waa dad reer baadiye oo sunni ah oo diinta islaamka ku dhagan oo nimankan gaalada ah wadankooda degan nagti inay ka dhigaan raba ayaa iyaguna meesha la degan. nimankii markaa isku dhacay. Druusku marka Israa'iil ay u heelinayso 3 marka loo dhigo ciidanka Israa'iil qayb badan oo kamid ah ciidankaas oo hal qayb ama lagu qiyaasay ayaa Druus ah. Druusku waxay degan yihiin Israa'iil, waxay degan yihiin maxayto Suuriya, Urdun, meel kasta carabta dhulkaan oo dhan ilaa Yahuudi degan. waataan hore idinku soo sheegay Druusku inaanay niman diin haysta ahayn culimadu isku raaceen oo la yiri nimanka iyaga iyo Yahuudu waa isleeyihiin. niman nabi aan aaminsanayn naar iyo janno iyo aan aaminsanayn waxyaabo badan waa ka soo hadlay barnaamijkan kaga soo hadlay. marka mucaarad iyo muxaafid Yahuudu waxay ku midaysan yihiin Druuska in la taageero. Druusku de askartooda iyo wax walba ka mid yihiin.
yuhuudna way isku dhow yihiin oo macnaha waxa ay yuhuuddu aaminsan tahay oo kale aaminsan yihiin marka waa dad noocaasa nimankan marka mucaaradkooda maxaafidkooda hal la difaaca leeyahay difaaca marka muxuu ka bilowday maalinkii axadda ee lasoo dhaafay ayaa waxaa dagaalamay nimankan badawiyiinta ah ee muslimiinta sunniga ah iyo duruuska waa la isgalay nimankii badawiyiinta ahaa markii hore dhowr qofaa laga dilay way soo rogaal celiyeen baadiyaha dhan inta ka yimaadeen ayay nimankii duruuska ahaa nagta ka saareen duruuskii af labadiiya qayliyeen iyagu dowladda uma soo dacwoonayaan suuriya waxay u qayla dhaansanayaan israa'iil way soo carartay duruuskii inay difaacdo waa difaacaynaa diyaaraday soo kicisay badawi maa yeelaya diyaarad iyo waxaan muu qoraa gaalka qabta qoorta ka jaruu leeya isaga bas badawiyiinta sunniga ah waxaa leeyahy nimankan yuhuudda la safan oo yuhuudda markasta usoo hiilinayso waaba ka sifaynaynaa leeyihin meesha dowladdii marka suuriya iyadoo dowladda shaqo kuma laha u fiirsada dad badawiyiin ah iyo nimankan duruuskaa istiriray dowladdu marka maadaama dowladdii ay tahay ciidan iyo taangiyo iyo alaabay soo dirtay si loo kala dhex galo waxayna soo saartay shuruuc ay leedahay dadka howlaha ku lugta leh labada dhinacba ee fidnada abuuray sharcigaa lala tiigsanaya u fiirsada fidnadana waxaa leeyahay waxaa kiciyay nimanka duruuska oo raba fowdo inay kiciyaan oo israa'iil ay soo gasho meesha dowlad gooniya noqdaan fowdadaasi ka shaqaynayaan badawiga isaga la daadaansadaa la leeyahy nimankii marka ciidankii u direen suuriya waataan saaki ka sheekeennay in maaragtay ciidankoodu ay magaalada xasiliyeen oo kasoo baxeen dagaalo kalaa dib u bilowday marka xukuumadda duruuska may la dagaashay iyadaaba dhexdhexaadinaysa waa wadankeedii nimankan duruuskaana waa suuriyiin waa meeshay degan yihiin nimankan sunniga ahna meeshay wada degan yihiin dowladduna waa dowladoodii saashay ugu dhex jirta soo maaha gardarrada adduunku marka la yaaban yahay waxay tahay israa'iil inta diyaaradaheeda soo qaadatay ee waxay duqaynaysaa wasaaradda gaashaandhigga magaalada dimashq shoog xataa wasiirkii arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa shoogay maraykankii ayaa yaabay waaya maxaa dhacaan leesee waxu jiraan maya nimanka badawiyiinta sunniga ah ayay dowladdu taageeraysaa dowladduna waxay leedahay sharcigan la maraynaa labada qoloba qoladii fidnada bilowday meeshana ciidan ay geeyeen waxbay geenada shaqadii wadankeediiya wadataa waa soo boodeen israa'iil maante xarunta ayay ku dhufteen wasaaradda gaashaandhigga qaybta abaanduulka ciidanka ayay garaaceen iyadoo maalin cad ay tahay oo dadku soo jeedaan adduunyadii o dhan arkayso qasrigii madaxtooyadana waa u dhow yahay gantaalaha meesha ay ku dhacayaan waa bannaankiisa waa madaxtooyadii suuriya marka waxala maxaa iska galay suwaydaa arrinta ka socota iyo meeshan madaxtooyada maxaa ka galay maraykankii ayaaban oo leh sidee waxaydi ka yihiin safiirkii maraykanka wuu qaylinayaa wasiirka istaraatiijiyadda wixii dhan ula hadlayaa wasiirka arrimaha dibadda maraykanka wuu qaylinayaa waxay leeyihiin sidee waxu jiraan turkigay ku dhegan yihiin maraykanka waxay leeyihiin ha joog turkiguna wuxuu taagan yahay ma ka yeelayno nimankan waxa ay wadaan see u weerari karaan wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxtooyada dimashq maraykanku marka waxay ku dhegan yihiin turkigu waxay leeyihiin ha dhaqaaqin annaga nimankan mayilka adag oo israa'iiliyiinta la hadlayna suga haddaba marka aan idintuso sida marka wax u jiraan waa saas adduunkii oo dhan marka yaaban waxaa leeyahay israa'iil halkan ku bood iiraan ku bood gaza ku bood halkan ku bood suuriya ku bood lubnaan ku bood war waxa iyagu maxay yihiin haddaba marka aan idintuso wararkii ugu dambeeyey israa'iil waxay weerar ku qaaday dimashq waxay sidoo kale sheegtay inay ciidamo dheeraada u dirayso buuraleyda golan meesha la leeyahay
haddaba israa'iil maanta arbacaa weeraro dhinaca cirka oo daran ayay ku qaaday magaalada dimashq iyadoo bal tilmaamaysatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska abaanduulka ciidanka iyo meel ku hareeraysan qasriga madaxtooyada. haddaba waxaa la sheegayaa in ciidamo dheeraadna ay geeyeen dhanka iyo buuraleyda golan, waxayna sheegeen inay ilaalinayaan oo marmarsiyo uga dhigayaan inay ilaalinayaan dadka la yidhaahdo duruuska oo ay sheegeen in weeraro ay kala kulmeen dhinaca koonfurta suuriya. haddaba wasaaradda difaaca iyo taliska abaanduulka ciidanka suuriya ayaa magaalada dimashq waxaa la sheegay in weeraro lagu qaaday taasoo sababtay dhibaato inay halkaa ka dhalato. hal qof ayaa dhintaa leeyahay 18 kalena way ku dhaawacmeen wararka horudhaca ah oo ka imanaya halkaas. u fiirsada guuto la yiraahdo guutada 98 oo Gaza ka dagaalamaysa iyo guuto kale oo la yiraahdo madaliyiin kuwa dalladaha ku booda ah ayaa waxaa la geeyay dhanka iyo buuraleyda golan. macnaha waxayba taagan yihiin haddii sheekadu sidaa ku sii socoto dhulka aan ku gelaynaa. nimankan marka ciidanka u ah maraykanku waxay u sheegeen israa'iiliyiinta ciidanka suuriya ma taqaaniinaa la yidhi horta ciidanka suuriyaanka oo hadda dowladda ciidankeedii ama ka siisid dhulka aba isku aadiyeen. waa maalinkii laydi feena lahaa liin. nimankan waa nimankii ka yimid alqaacida iyo daacish iyo kulli axmed asharac dadkiisi waali. marka waxay yidhahdeen ciidanka waxaan meesha u geynay inaynu buuraleyda golan ku waardiyeysano si aysan ciidamadan oo xanaaqsan aysan noo soo gelin. marka maraykanku waxay dareensan yihiin haddii suuriya dhibaatadeedu sii socoto waxa meeshaa ka dilaaci kara. israa'iil haddaa gaza uga furan tahay, lubnaan uga furan tahay, suuriyana hadday uga furanto maxaa dhacay? marka meeshaas marka aan idintuso marka maraykankii waxay leeyihiin. aljaziira waxay qortay goordhow mas-uul maraykana wuxuu sheegay maamulka Trump inay u sheegeen oo ay ka codsadeen israa'iil inay degdeg u joojiso weerarada ay suuriya ku hayso. mawqica la yidhaahdo Axios ayaa wuxuu soo xiganayaa mas-uul maraykana wuxuu sheegay maamulka Trump inay ka codsadeen israa'iil inay degdeg u joojiso weerarada isla markaana ay wada hadal degdega la furto xukuumadda dimashq si arrinta loo qaboojiyo. ergeyga maraykanka ee arrimaha suuriya ayaa isaguna telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha istaraatiijiyadda israa'iil wuxuuna ka codsaday arrinta in degdeg loo qaboojiyo oo aysan faraha ka bixin. way mawjada marka nimankan waxaa leeyahay waaba soo nimankii waa waxay rabaan iska weeraraan. marka turkiga marka waxaa leeyahay turkigan isaga waraa ka soo haraa leeyahay ninka Erdogan ahaa war kaliyo haya war niman Suuriyaano la wareysanaya arkay waxay yiraahdeen turkigu wuxuu noo ballan qaaday inuu na difaacayo siday u soo socotay Israa'iil qasru ri'aasay duqeynaysaa waa xaruntii madaxtooyada agteeda garaacaysa taliska ciidanka maasha maartay wasaaradda gaashaandhigga aawo turkigan oo maartay waxay yiraahdeen ninka faataalo waayeen wax ka jira male warkiisa dheen Erdogan warkiisa ma jira dheen. Erdogan kiina waxaa leeyahay maraykanka ku dhagan oo leh arrinta haddaa sii gasho faray ka baxaysaa ninkan Netanyahu waa nin wareersan annaga la hadlayna u kaadi. sheekadu marka waa isku wareer. haddaba marka turkiga yaa war soo saaray aan idin tuso marka warka turkigu soo saaray. turkiga waxay leeyihiin israa'iil inay bartilmaameedsato dimashq waa isku day ay ku kharibayso hanaanka nabadda ee adduunka ee ka socda suuriya iyo meelaha. haddaba bayaan rasmi ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga maanta arbacaa ayay kaga hadashay weerarada israa'iil ay ku qaaday caasimadda suuriya ee dimashq. haddaba marka waxaa leeyahay turkiga wuxuu sheegay israa'iil inay bartilmaameysatay bartamaha magaalada dimashq oo markaa ay faragelin ku hayso dhinaca koonfurta waddankaasna ay faragelin ku hayso waxayna arrinkani ay dhibaateynaysaa dadaaladii nabadgelyada iyo deganaanshiyaha la waday. haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga maanta arbacaa waxay sheegtay
iyadoo ka hadlaysay weeraradaasi suuriya lagu qaaday in arrinkanu uu yahay mid dhibaato horseedaya. weerarada Israa'iil waa mar kale oo ay bartamaha Dimashq weerarayaan, waxaana Turkigu ay sheegeen in arrintani ay keenayso dhibaato ka dhalata gobolka, deganaanshiyaha iyo amnigana ay faraha ka bixi doonaan. muujada wasaaradda arrimaha dibadda qaab diblomaasiyadeed oo hadashay, laakiin waxoogaa yaroo tahdiid yaraa ku jira. tahdiidku marka waa handadaad yaraa ku jirta, waa waabis yaraa ku jira. amniga iyo deganaanshiyaha gobolka faraha ka baxaya iyo waxaas meeshan waxay leeyihiin waxaas baa loo baahan yahay. turkiga hadduuna difaacaya dee diyaaradihiisa darisaana inta soo kacaan diyaaradahan hawada ku jira hanaga celiyaan, haddii kale wixiisa war waaye dheen waru haayay dheen ninka leeyahay Erdogan. haddaba marka xaalku halkaasuu mara. marka warar goordhow soo dhacay oo arrintaa ku saabsan ayaanu u gudbi doonaa, laakiin waxaanu ka hakanaynaa qadar xayisiis. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Parklands, jidka 6th Avenue, City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo ah 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional, kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur'aanka hab casri ah online ah. maadooyinka ka baran karto waxa kamid ah qur'aanka kariimka, higaada, luqadda carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadin dugsiga markaas Daaru Taqwa. asxaabay meel kastoo aad joogtaan, waxaynu ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeennii galabnimo oo maanta gebi ahaantii aynu ku qaadanayno niyuuska weyn ee adduunyada dhan ay ka hadlayso. gardarrada Israa'iil ay ku qaaday weerarka magaalada Dimashq. madaxtooyadii wasaaraddii gaashaandhigga ayay weerartay iyadoo adduunka oo dhan indhaha saas ugu hayaan. marka xarka goosad ayaa la yidhi, markaa maashii waa xarka goosatay Israa'iil. cid meel shay rabtay weeraraysa, xagga ku dhac xagga ku dhac xagga ku dhac. laakiin Soomaalidu waxay yidhaahdaan duqsigii halkan ku bood caanaha ku dhac biyaha ku dhac wada marka dambe maraq kulolo ku dhacaa la yidhi. mafaab marka nimankan xaalkoodu marka halkaasuu bari doonaa. marka sida hadda la leeyahay nimanka kanu gobolkii oo dhan ayaa isla kacay. madaxweynaha Lubnaan hadda hadlay wuxuu yiri Israa'iil weerarkan ay Suuriya ku qaaday madaxtooyadii wasaaraddii gaashaandhigga ay weerarayso. gobolka xaaladiisu faray ka sii bixinaysaa. Israa'iil deganaanshiyo uma rabtay leen gobolkan. marka carabtii oo dhan qayle iyo cambaarayn kaliya ayaa ka soo artay. marka war goordhow soo dhacay wakaaladda wararka ee Suuriya leedahay Sana ayaa waxay sheegtay in xabad joojin laga gaaray dagaaladii ka socday Suwayda meesha la leeyahay meesha dagaalka bilowday. badawiyiintii iyo duruuskii ayaa la isu keenay, dawladda ayaa maartay meesha ku heshiisay xabad joojin. waxayna ku heshiiyeen ciidamada dawladdu inay magaalada checkpointyo dhigtaan inta xaaladdu ka degayso si dagaalku uusan mar kale u soo laba kaclayn. marka wararkaas soo baxay. haddaba maxay idin la tahay fakarkeena iyo aragtidiina? xaaladda waa u jeedaan Israa'iil meesha rabtay ku duulaysaa. marka Turkigana waa idin difaaca soo ulaha Suuriyaanka hadda yaab waxay leeyihiin ayna Erdogan leey fein Erdogan aaway Erdogan intuu galay waaba sida xaggan loolaha madaxtooyadii aljoomo kadib madaxweynihii markii la dilay muu imaana. marka sheekadaas halkaas ay maraysaa. barnaamijkii galabnimo waa naga intaa. fakari aragti noo soo qora, sidoo kale la gareey oo share gareey. haddaad nagala socoto YouTube-ka iyo Facebook-ka oo aad cusub tahay subscribe-ka iyo hayloobin iyo follow gareynta intaan markale kulmayno nabadgelyo.